سلام عليك سيدي سلام عليك سندي يا جندي اسحاق الجند بالمنى سلام عليك سيدي سلام عليك سندي يا جندي اسحاق الجند سلام عليك سيدي سلام عليك سندي يا جندي اسحاق الجند بالمنى سلام عليك سيدي سلام عليك سندي يا جندي اسحاق الجند بالمنى سلام عليك سيدي سلام عليك سندي يا جندي اسحاق الجند بالمنى guud ahaanba culimada kala duwan ee qaadiriyada ayaa habeenkii xalay toole ahaa sameeyey xuskii siyaaradii Allah u naxariistay Sheekh Isxaaq bin Axmed gaar ahaan culimada magaalada Berbera ayaa munaasabaddan ku xusay maqaamka Sheekh Yuusuf Maame ee magaalada Berbera waxaana halkaasi ka hadlay culimada kala duwan ee ku sugnayd goobtaasi iyagoo culimadu gabagabadiina bartaasi ay ku qaaday qasaa'id kala duwan oo lagu ammaanayay Sheekh Isxaaq bin Axmed iyo rasuulkeeni subhanahu alayhi salatu wasalaam اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وحويان halkan waxaanu u fadhinaa xilqadan iyo magaranaysa xafladan aynu halkan ku qabanay waxa weeyaan waxay ku saabsan tahay siyaaradii sheekheeni weynaaye jadulajdaadka ahaa Sheekh Isxaaq bin Axmed Shariif Isxaaq ayay ku saabsan tahay aynu caawa u fadhinaa muusimkiisii 22 bisha Jamaadul Aakhir oo ku beegan waa caawa laga dhigayaa maydh iyo dhulkii magaranaysa dhulka badankiisa caawa laga dhigayaa saas waxaan u fadhinaa awliyada marka la siyaaranayo si adab leh oo soo dhaweyn leh oo magaranaysa maxabba iyo kalgacal leh ayaa loo aqriyayaa marka aan diyaar garooba أشرف الأنبياء والمرسلين سيدي طه الأمين وعلى آله وأصحابه طيبين الطاهرين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وحين عاو فردنا موسمكي شيخي وينا أووغينها شيخ إسحاق ابن أحمد الهاشمي القريشي فالوحين إن يرستابسين دونا كتابة تواريخ ذا يكور رنتي أما تاريخ ذا الشيخ لغو قري يبل شيخو يا هذا لا بدن وهذا لا ينو كدلاتي إنه الشيخ هاشمي ها إنه الشيخ أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه أهل iyo inaynu cajamtaasun awal aynu ahayn de bal arrinkaasaynu in yar xaqaaqdiisa dul istaagina kitaabkan aynu ka soo naqlin doono waxa la yiraahdaa al-asjad al-manzum fi at-tarikh wal-ulum al-asjad al-manzum kabaarata waxaad ka helaysaan kitaab taariikhda khadkaad ka helaysaan xataa google-ka ka helaysaan kabaara al-asjad al-manzum fi at-tarikh wal-ulum مخطوطة سيرة الشريف إسحاق ابن أحمد في اليمن والصومال شيخ إسحاق ابن أحمد يمن انتي وشوغي يا انتي وصوماليا يمد لبضبا تاريخ ذني ويقريسا waxay kaloo taariikhdan qoraysaa oo aad iyaduna u nafci badan inuu sheekhu radiyallahu ta'ala anhu ahaa mudarisan lil ulum meelo badan oo caalamka ka kala tagsan kamida inuu culumta iyo diinta ka dhigi jiray oo sheekhul cilmi ahaa تأليف waxa alifay kitaabkan Sayyid Muhammad ibn Ahmad al-Ghirbaani sheekh la yiraahdo waaya bal hadaba inuu kitaabku intuu ka kooban yahay aynu eegno muxuu ka kooban yahay kitaabku wuxuu ka kooban yahay taariikhda Sheekh Isxaaq ibn Ahmad imaashihiisii iyo ka soo kicintiisii Yaman marka hore sheekhu inuu ka yimid Iraq ardul Iraq awowgiis iyo اللهم أبيه إنه كيمادين العراق هاي شريفتي العراق دقنيد وحكلوا تاريخ لأنه قام من نقطة دونته وحياله كسو كعتيمية أما ككاني أما كخص بينه ودن كودي كسو هاتيران أو أي أرض اليمن يمادان مر أرض مقرانس المدينة أي مر يمادان مر بمال إلى أرض الصومال مر كده بيو شيخ حيس يما يدلا وكسو دقي يمالي كل قد سنة شيخ صامري وحكلوا تاريخ الحصيصة
sheekhu imaamyadii xufaadda hayda cilmiga iyo rag badan oo diintan maxamediya maanta imaamiyo inooga ka qaadano raggii uu la kulmay iyo wixii ay ka sheegeen cilmi badnaantiisa iyo cilmigii uu u dhigay iyo wixii ay sheekha ka barteen ayaa bartaa iyaduna allahumma salli ala sayidina maxamedin aynu ku xusi doonaa oo kitaabka ku xusan waxaa ku xusan allahumma salli ala sayidina maxamedin safaradii sheekhu uu mukha iyo zaylac ugu kala gooshay waxaa kaloo ku xusan markuu sheekhu zaylac joogay sheekh isxaaq ibnu axmed oo cilmiga dadka ku bari jiray oo mudaris bartaa ka ahaa لمن في الدنا والمحاشر هذا يا صفي الله يا صفوة الرحمة فصلح وليدا قد جنى جر مجاري هذا يا نجي الله يا ليث للعدا فعليك حسود المريد والله فواجرين فيا سيد الأكوان كل مواهبا وعلما وأسرارا معرف فما دري ويا سيدي لو كان عيني تراكم فلكنت أبغي من سواكم مصامرين ويا سيدي لو شنت رحابركم بلغتم عند ربي يا شاكرين فأنت أمراض الخلق ضرا درعا نكر فنكرها بجملة شر خاسرين هم الله فيهما كنا على مطالبا فأخذ فبيدا في المصالح كصائرين عثمان علي ورك هوريال تي في بربرة